نستعين على أمور الدنيا والدين. أنا ياسين عبد الله حاشي مشرح قولها ديجانك حسب قوعد waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo dadweynihii sharafta badnaa ee suxil qaamay inay qaataan kaarka codbixinta iyadoo ay shalay ahayd maalintii ugu dambeysay muddooyinkii la gudbiyay goobaha khaaska ah. waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyaradii isxilqaantay ee hawdka iyo oogada iyo waqooyigaba dadka ka soo guray habeenada u dib jiray si ay dadkooda u diiwaangeliyaan iyo dadkii magaalada guud degmada Hargeysa guud ahaanba aadka isku diiwaangeliyay aad iyo aad baan dadka faraha badan leh khaasatan ee taageerayaasheeda ahaa ugu mahadnaqayaa sida fiican ee uga qayb qaateen diiwaangelinta. mar labaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha degan degmada Hargeysa oo dhan sida quruxda badan leh ee uga qayb qaateen isdiiwaangelinta. waxaan aad iyo aad idin xasuusinayaa inay maanta tahay fursad mar labaad idin soo martay oo aynaan fartiina eersanin. maanta saddexda xisbi walba wax ka sharaxan 17 qof oo golaha deegaanka u sharaxan. dad wanaagsan baa maanta sharaxan, dad badan oo aan dadkii hore kala ahayn baa maanta sharaxan. maanta idinkaa ayaa awooddiida ku soo noqotay, idinkaa ah maanta kuwa kala saaraya dadka. fartiina mar labaad ha eersanina, doorta dad wanaagsan, ku doorta siduu ilaahayna yidhi u doorta, diin cadaalad iyo qof ammaano la doorto buu ilaahay yidhi. waa laydin weydiin doonaa aakhiro haddaa maanta gacantiina mar labaad uga codaysaan dadkii ashriya tijaabiseen waxay galaan iyo waxay gudaan baa garanaysaan. nimanka cuqaasha ah iyo odo dhaqameedyada iyaguna dadka u soo xulaya waxaan leeyahay ka taxadira aakhiradiina ilaashada, ha u soo xulina dadkii hore u eedeyn. bulshada u soo bandhiga dad wanaagsan. asxaabtana saas leeg baan leeyahay, soo xula Hargeysa u soo xula 17 qof oo nadiif ah oo ummadda u shaqeeya. annagu musharaxiin baan Hargeysa ka nahay, haddii ilaahay noo qoray waanu imanaynaa. ilaahayna waxaan weydiisanaa hadday khayr noo leedahay inuu na keeno oo ummadda khayr u leeyahay inuu na keeno, haddaanay khayr noo lahayn inuu ilaahay naga joojiyo. dadweynaha degmada Hargeysa waxaan leeyahay mar labaad gacantiina ha eersanina, mar labaad gacantiina ha eersanina. soo doorta dad wanaagsan oo idin shaqeeya. hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa ilaahay waxaad noo doortaa dad wanaagsan. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا أشرارنا. سبحان ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.